متأملا في قدرة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، waxaynu galabta halkan ka bilaabaynaa kitaab la yidhaahdo irshaadu aطulaabi ilaa nahji sawaab, oo macnaheedu uu yahay qofka طaalibulcilmiga ah oo lagu hanuuniyo wadada toosan. qofka طaalibulcilmiga oo wadada toosan lagu hanuuniyo waa nubdatun fi tacriifi alculuum الsharciya. waa qeyb yar oo aada u kooban. nubda waa alqطcatu min ashay baa nubda la yidhaahdaa. nubdatun can ilmu'alif, ninkii kitaabkan qoray baan taariikhdiisa, taariikh nololeedkeeda wax yar ka waramaya. waa nubda, waa nuun iyo ba iyo daal iyo ta. nubda marka waa alqطcatu min ashay, gabal ama qeyb shayga ka mid aha nubda la yidhaahdaa. marka ciwaankan ama risaaladan irshaadu طulaabi ilaa nahji sawaab waxay qeyb yar weliba ka tahay fii tacriifi alculuum الsharciya, culuumta shareecada qeexitaankiisa. culuumta shareecada sharcigu, culuumtan aynu u naqaano culuumta shareecada oo la qeexo ayuu kitaabku ku saabsan yahay. iyo wa aadaabi طalab, cilmiga marka la dalbayo ama la doonayo, yar iyo weyn iyo rag iyo dumarba, aadaabta la isaga baahan yahay iyo anshaxa. arrinkaasuu risaaladu ku saabsan tahay. marka waynu bilaabaynaa in sha allahu. waxaan isku dayayaa marka laqbaha af soomaaliga inaanan ku celcelinin, oo sidii xer maaragtay wadaadkii hor fadhido oo kale aanan idinkugu celcelinin, hal mar baan laqbaynayaa in sha allahu. ciddii markaasi u baahata tasjiilka ama codka ayay dib ugu noqon doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. bismi illaahi araxmaan araxiim. bisinka in wax lagu bilaabo waa da'bigii dadkii wanaagsanaa. shay walba oo qiimo lana ilaahay magaciisa in lagu bilaabo ayaa wanaagsan. alxamdu mahad lilaahi, ilaahay bay u sugnaatay. mahad idaylkeed ilaahay baa iska leh. allihii rabbilcaalamiina, caalamka rabbigiisa ahaa oo uunkoo dhan rabbiga u ahaa. uunka waa maa siwa allah, wixii ilaahay ka soo haray oo dhan baa la yidhaahdaa. wasalaatu, ammaan iyo naxariis. ammaanna asalaah waa lagu magacaabi karaa, naxariisna waa lagu magacaabi karaa, ducana waa lagu magacaabi karaa, laakiin ammaanta ayaa waxoo dhan kulmisanaysa. marka almaantaynu u daynaynaa. wasalaatu ammaan, iyo wasalaamu nabadgeliyana calaa sayidi lmursaliina, mursaliinta kuwii lasoo diray sayidkoodii iyo ugaaskoodii dushiisa ha ahaato, oo dushiisa allaha ka yeelo. wa imaami alculamaa'i, culummada imaamkoodiina dushiisa allaha ka yeelo. culummadii alcaamiliina, cilmigooda ku camalfalaysay. dad badan oo wax yaqaano oo aan cilmigooda ku camalfalin baa jira, laakiin culummada uu nabigu imaamka u yahay ee ammaanan waa culummada cilmigooda ku camalfasho. allahuma ajcalna minhum ya rab alcaalamiin. sayidinaa, sayidkeennii muxamadin ahaa, waa laga bedelayaa marka. imaamkii sayidinaa ahaa, sayidkeennii waa ugaaskeenni, muxamadin ahaa. wa calaa aalihi, nebiga aalkiisana dushiisa ha ahaato, iyo wa saxbii, asxaabtiisa ajmaciina dhammaantood. waman qofna dushiisa ha ahaato asalaatu wasalaam, dushiisa ha ahaato qofkaasoo ihtadaa ku hanuunay bihadyihim, kuwa hanuunkoodii. asxaabta iyo aalka rasuulka dhammaantood, iyo cid alla ciddii wadadooda qaaday ee ku hanuuntay dushiisa allaha ka yeelo. waman ihtadaa bihadyihim ilaa yowmi ddiini, ilaa iyo laga gaadho maalinta is-abaalmarinta. ilaa yowmi ddiini, maalinta is-abaalmarinta intii laga gaadho. amaa bacdu, intaa kadib, fa ina alcilma, cilmiga, huwa isagu ashrafu maa yacmaluhu linsaanu, insaanku wax uu sameeyo kan ugu sharafta badan weeye. luqadda carabiga
sida dhowr jeed iga maqasheen marka la laqbaynayo dibdib baa loo laqbeeyaa fa ina alcilma cilmiga huwa cilmigu kuwaas dee mid walba goonidiisu u go-an yahay waxyaabaha la isu idaafeeye ee sida hadda ashrafu maa yacmaluhu linsaanu intaasi lama kala goyn karo markii carabi ahaan loo akhrinayo ashrafu maa yacmaluhu linsaanu insaanka wax uu shaqaystoo sameeyo kan ugu sharafta badan weeye cilmigu wa khayru maa shay kan ugu khayrka badan weeye maagaasoo yunfiqu uu ku bixiyo ku nafaqeeyo fiihi isaga dhexdiisa insaanka saacaati cumrigiisa saacadihiisa cumrigaadu saacadaha uu ka kooban yahay wax aad ku bixiso waxaa ugu qiimo badan inaad cilmiga barato gabdhiyo wiilalba aad ha loo dhagaysto inaad isboorti samayso iyo inaad make up samayso ma aha in aad wax cunto iyo inaad seexato iyadoo hadda loo baahan yahay cuntada iyo seexashadaba laakiin saacadaha cumrigaadu uu ka kooban yahay wax aad ku bixiso waxaa ugu qiimo badan cilmiga barashadiisa wa khayru maa yunfiqu fiihi saacaatu cumrihi allatii saacadahaasoo hiya iyaduba ra'su maalihi xoolihiisa ra'su maalkoodii ah ra'su maal waxaa la yidhahdaa ra'si waa madaxa maalna waa hantida iyo xoolaha marka ra'su maal waa hantidaada madaxeeda hantidaada inta lafdhabarka u ah ee aasaaska u ah baa ra'su maal la yidhaahdaa marka saacadahan aada nooshahay waa xoolahaada ra'sumaalkoodii weeye wayakfiihi waxaa ku filaanaya cilmiga wayakfiihi waxaa ku filaanaya cilmiga sharafan sharaf ugu filan wa fadlan fadli iyo dheeraad ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala nasahnaa oo sarreeye maa amara ma uusan amrin rasuulahu rasuulkiisa an yastaziida inuu kororsi dalbo min shayin shay inuu ka kororsi dalbo ilaa minhu cilmiga ma ogiye shay uu allahu jala jalaaluhu nabigiisa muxameda amar ku siiyey inuu yidhaahdo ii kordhi ma jiro cagsiga nabiga waxyaabo badan ayuu ilaahay weydiistay laakiin shayga keliya ee allahu jala jalaaluhu nabigiisa muxamed ah oo uunkiisa ku ugu jeclaa ah sala allahu calayhi wasalam oo uu amar ku siiyo oo yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahow ii kordhi oo aan cilmiga ahayn ma jiro maa amara ma uusan amrin ilaahay rasuulahu rasuulkiisa an yastaziida inuu kororsi dalbo oo loo kordhiyo min shayin shay in loo kordhiyo ilaa minhu isaga ma ogiye cilmiga ma ogiye minhuda damiirka ku jiro damiirulghaa'ibka cilmigu u noqonayaa ilaa cilmigaan ka soo hadlayne fa ina alcilma waa nagii soo nidhi ilaa minhu faqaala subxaanahu wa tacaala ilaahay nasahnaa oo sarreeye wuxuu yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa waqul waxaad tidhaahdaa rabbi yaa rabbi rabbigayow zidnii ii ziyaadi cilman cilmiga ii ziyaadiyo ii kordhi suuratu taaha aayadda 114 weeye wa qarana wuxuu xidhiidhiyey subxaanahu ilaahay nasahnaaye fi shahaadati shahaadada iyo ka markhaati kaca bitowxiidihi ilaahay waxdaaniyadiisa iyo towxiidkiisa laga marakacayo bayna daatihi alcaliyati ilaahay daatadiisa sarraysa iyo wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa ayuu xidhiidhiyey malaa'igtii annuuraaniyati nuurka laga abuuray iyo wa ahli lcilmi dadka ahlu cilmiga ah waxaa kaloo cilmiga sharaf ugu filan wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala xidhiidhiyey oo isfangeliyey oo uu isku meel dhigay isku meel ku sheegay markii laga markhaati kacayay towxiidka rabbi daatada ilaahay ee sarraysa ee muqadaska ah ee sharafta badan iyo malaa'igta rabbi iyo nuurka laga sameeyey iyo dadka ahlu cilmiga ah buu xidhiiriyo isku meel ku sheegay faqaala subxaanahu wa tacaala wuxuu alla yidhi shahida allaahu ilaahay wuxuu ka markhaati kacay annahu sha'nigu laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa huu isaga ma ogiye waalmalaa'ikatu malaa'igtiina ilaahay bay an laa ilaaha ilaa huu bay markhaati ka yihiin wa ululcilmi dadka ahlu cilmiga ahna an laa ilaaha ilaa huu bay markhaati ka yihiin towxiidkii bay markhaati ka yihiin weeye wa ululcilmi weeyena maxalu shaahidka qaa'iman bilqisti laa ilaaha ilaa huwa alcasiizu alxakiim iyagoo cadaalad qaa'iman xaal uu yahay allah tabaaraka wa tacaala mid ku taagan bilqisti cadaalad ku taagan
لا إله إلا حق لغو عابد مجر إلا هو إساق مؤغيه اللي العزيز غالب كايا دومدي سكاتك الحكيم إمام الكوناكسنا كما سيدا قرنا وحريريي بينهم ضميرك هم وحقون نقول يا أهل علمك إلا نيجان كسو هذا لينه كما سيدا قرنا وحريريي بينهم أهل علمك إيا وبين المؤمنين كوا أهل إيمانك هذا أفيرسو أهل علمك وحي كمديهين مؤمنين إيا دادك إيمانك لغا هلي هذا نسيقوني الله الشيغي وما حي سببتو ولشرفهم شرفت إليهين إيا درجة إليهين بالموچينيا كما سيدا قرنا وحريري بينهم أهل علمك إيا وبين المؤمنين دادك أهل إيمانك في رفعة الدرجات درجة سرين تهذا مركو كهد لي الله تبارك وتعالى وحو اسبربر لغي مؤمنين إيا دادك أهل علمك فقال عز من قائل فقال وحويري عز من قائل مدير هذا كي وعزيز سناه وغالب سناه ويه وأرم بدنا الله وحويري سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات نوية محل شاهدك يرفع الله إلهي وحو كري ليا الذين كوا آمنوا إيمانك لغاهلي وأهل إيمانك ومنكم إذنك إذن كمد اللهم اجعلنا منهم والذين كوين وكري ليا أوتوا العلم علمك اللسيي كوا أهل علمك أقون تشريع له أقون لهنا الله تبارك وتعالى درجو أيوسي ربي سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى كوانا درجة أيوسي marka halkaana wuxuu isbarbar dhigay rabbi subhanahu dadka muuminiinta iyo kuwa ahlu cilmigu isbarbar dhigay ka soco marka wal ilmu ilmigu qariinul hayaa nolosha ayuu la xiriirsan yahay ilmigu nolosha ayuu saaxiib leeyahay qariin waa shay u dhow waa shay ku xiga waa shay ku laran waa shay ku dhagan والعلم علمه قرين الحياة نلش أيوك دقين يهو لحرير سيهي فقد قرنه الله إلهي وحو لحريري علمه سبحانه وتعالى بنعمة الخلق إس أبورد النعمة يديبو علمه لحريري أيو الإيجاد هيسينته الله تبارك وتعالى وحو حريريو اسكو مالكو الشيغي أبورستي أونك أبوري إيا أهيسينتي أهيسيي واسكو مده أيو وحول حريري علمك مباشرة ستوسة في قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ أخري باسم ربك مجعيس أخري الذي الله سو خلق أبو ري بلا دو فيرسو أبو رستيون لشيغين باوحال يري اقرأ وانا كلمة دي يقوه الرئيسي النبي محمد لقوسو الدجي عليه الصلاة والسلام مركا على قوين باكد حيث نلش آدنها نلش ابن آدمك إيا أقونت مركع على قوين باكد حيث اقرأ أخري باسم ربك الذي الله سو خلق أبوري معنو وحاوي هدادا أقون لهين من نولد باسو سعوته هذا كان أساس أدعيا قفك الجاهل أو قف دنتي أو نولين خلق إلهي وحو أبوري الإنسان إنسانك من علق بوك أبوري حنجر اقرأ أخري وربك ربك الأكرم وناق بدنا وحول بقو وناكسنا الذي الله سو علم أبوري علم بريد بالقلم قلنك إيا وحا لقول لغو اللي أونك بري الله سيمك عيسى أخري علم الإنسان إنسان كبري ما بري لم يعلم أوسن أغين ابن آدم كان وحا أوسن أغين الله بري الله سمك عيسى أخري الله أكرم كأمج عيسى أخري الله أقونت دتك براي مج عيسى أخري بل ككالي وركاسة قدم إلهي وحوكهر مريي العلم علمي على الخلق خلقي وبورستي بكهر مريي وأنك صور شيخنا هذا صوّدنا اقرأ باسم ربك الذي خلق بل قدم العلم علمي وحوكهر مريي على الخلق خلقي بكهر مريي في قوله إلهي هذا الكيس سبحانه وتعالى الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن والله رحمن كا علم وحو بري القرآن قرآن كودتك بري أبشروا يا أهل القرآن أبشرنا يا أهل القرآن دتك قرآن كحفظن هب بشاريستين أمان يبقادين باميشن أوغوسوغن علم القرآن قرآن كأيو ربي بري سبحانه وتعالى الله الرحمن كأ فضل جيسيو ogolaashihiisa ayay ku suurowdaa qofku inuu qur-aanka xifdiyo ku camal falo fahmo ku tadabburo dadka gaarsiiyo khalaqa al-insaana insaankii buu abuuray u fiirsa hadda cilmigii iyo qur-aanka barashadiisa laga hadlay iyadoon abuuristiiba la gaarin cidda lala hadlayana waa kuwan la abuurayo weeye insaanka ah khalaqa al-insaana marka bal qaddama al-cilma cala al-khalqi wataa yacni oo ar-raxmaan callama al-qur'aan khalaqa al-insaana cilmigii baa laga hormariyey khalqu linsaan callamahu lbayaan caddaynta iyo fasaaxada ayuu alla subxaanahu wa tacaala insaanka baray callamahu insaankii wuxuu baray rabbi albayaana waa ficil iyo faacil iyo mafcuul isku jira callamahuda callama allahu hu insaankii albayaana mafcuulkii wakaa marka mafcuulkii labaad oo callamada ayaa laba mafcuul qaadata wa haadaa arrinkaasna daliilun waa daliil oo maxay daliil u tahay calaa ana alcilma cilmigu huwa alxayaa ana alcilma cilmigu huwa alxayaa inuu nolosha yahay noloshan laguu sheegaya qof hebel wuu nool yahay lagu leeyahay waa aqoon buu leeyahay macnaheedu qof nool oon aqoon lahayn qof nool ma aha hadduu doono haba cabo oo ha cuno oo ha guursado oo ha socdo oo ha durduriyo oo wuxuu dooni ha sameeyo وهذا دليل أرنكاس وحو دليل يهي على أن العلم علمه هو الحياة علمه إنو نلش يهي علمه إنو يهي علمه لغو شيغي إنو نلش يهي ومن قفكي لا يتصل أن لحرير من العلم علمه بسبب سبب قفك أن حرير للهين علمه لا يتصل من العلم قفك عن علمك حرير للهين لا يتصل من العلم بسبب وسبب تنوين تكوشرت وتنوين تنكيرو بسبب سبب بعد أوران سي قفك عن علمك حرير أورا لهين لا عالما مد أقويها معها ولا متعلما أرض إيمنك وحبرنا ينا معها ولا راغبا مد أصوص عضو دون ينا معها فليس معها مد كاسي من الأحياء كون نول نول كمد معها كون نول نول oo nolosha ay ku jirto kamid ma aha wala yastahiqu alhayaa inuu noolaadana ma astaahilo qofkaasi inuu noolaadana ma astaahile dadka cuntada yuusan ka dhamaynin dadka yuusan tarbiyada iyo kharajka ka dhamaynin qofkaan aqoon lahayn qof nool ma aha bal iska daaye huwa mayitun wa mayt yamshi maydkaasoo yamshi ku soconaya calaa qadamayni laba lugood waa mayd laba lugood ku socdo weeye qofka marka sidaas ah nabiga sida uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yiri mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkur kamathali alhayy walmayyit kan ilaahi xusaya iyo midka aan ilaahi xusaynin waxay isula mid yihiin mid ma aragtay nool iyo mid dhintay bay isula mid yihiin mid nool iyo mid dhintay bay isula mid yihiin waayahay وهذا ما عناه شاعر بقوله وهذا أرن كاسنا ما كيوي عناه وأتشيذي يعني ذي ماشي كسو جدوي ما عناه قصد كيسيوي ما كيوي عناه وقصدي الشاعر قبياقي بقوله هذا الكيسي أها وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور وحوير شاعرك قبياغا نين قبياغه قبيبا وحوير وفي الجهل جهل نحدي سوحاء قبل الموت دمشق هرتاد موت بقى دمشق لأهله أي لأهل الجهل ذاتك أهل جهل أيو جهل دمشقويه وأجسادهم شركودنا قبل القبور انت ان قبر لجرين هرتاد اي قبور بوسيهين
isticaaro la yaab laha ku jirta meeshaasoo waxaa weeye dadka jaahiliinta ah waa dad dhintay oo jahliga ay ku jiraan ayaaba dhimasho u ah jirarkooduna waa qabriyo intaan qabriyo kale qabrigii la yaqaanay dhulka laga qoday intaan la gaarin jirkooda qabri u sii ah oo naftoodan jirka ku jirta waa un naf qabri ku dhex jirta way moogiya naf nool ma aha laga wadaa wa fil jahliga dhaxdiisa qabla al-mawt mawt horti mawtun ba ahli li ahli al-jahl buna u yahay wa ajsaduhum jirarkooduna qabla al-quburi qubur horteed bay quburu qabriyaal yihiin wa inna imra'an qof kasto wa inna imra'an qof kasto wa inna imra'an qof kastoo lam yaxya aan ku noolayn bilcilmi cilmiga aan ku noolayn mayitun waya mid dhintay walaysa ma ahaanin lahu isaga xata nushuuri ilaa la iska soo bixinayana nushuurun soo bixitaan uma ahaanin ilaa iyo inta la iska soo saarayee nashriga iyo qubuurta inta la iska soo saarayana isagu nashri iyo soo bixin uma sugnaanine waa qof dhintay wa inna imra'an qof kasta oo lam yaxya aan ku noolayn bilcilmi cilmiga mayitun mid dhintay weeye walaysa uma sugnaanin lahu isaga xata nushuuri ilaa isi soo bixitaanka laga gaaro nushuurun soo bixitaan uma sugnaaninoo kama samata baxayo jahligaas uu ku sugan yahay weeye walilaahi daru shaacir walilaahi ilaahay buu u sugnaadoo ku mahadsan daru shaaciri ninkii gabiyey dararkiisa ereygan darra waa dararidda waa godlashada weeye waxaa carabtu waxay tidhaahdaa darrat innaaqatu hashii baa godlatay darrat innaaqatu hashii baa godlatay marka darrat ashaaciru darra shaaciru macnaheedu waxaa weeye gabayaagii baa maaxday oo xikmad iyo halkudheg iyo wax wanaagsan buu soo burqaday weeye marka ilaahay baa looga mahad celinayaa qofku markuu hadal wanaagsan yiraahdo baa waxa la yiraahdaa lillahi darruk ilaahay bay barbaarintaadu gacantiisa ku sugnaatay marka walillaahi ilaahay buu u sugnaaday daru shaaciri gabayaagii darardiisii iyo xikmadii uu sii daayee badnayd id goortii qaala uu yidhi mal fadlu ilaa liahli alcilmi innahum cala alhudaa liman istahdaa adillaa'u وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء وإن أتيت بجود من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء ففز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء ما الفضل فضلك إيا ديراتك ما أهانن فضلك إيا ديراتك ما أهانن إلا لأهل العلم كو أهل علمك أموغي عدك لو فضل إيا الشرف لما تشرتو إنهم إيقو إنهم ويا لكن شعر كدرادت با ميمك لو قضي إنهم أهل علمك على الهدى هنون دوشيبي hanuun dushiibay liman qof ugu sugan yihiin istahdaa hanuun dalbay ayay adilaa u yihiin mal fadlu fadligu ma ahaanin ilaa liahli alcilmi kuwa ahlu cilmiga amoogiya cid kaloo fadli lama ay jirto innahum ahlu cilmigu cala alhudaa bay adilaa u yihiin kuwa dadka hanuunka tusiya cala alhudaa hanuun korkiibay adilaa tusayaal ku yihiin liman qof bayna ugu yihiin istahdaa hanuun dalbay cala alhudaa adilaau cala alhudaa hanuun korkiibay adilaau ereygaa kelmaddaa soo hormari ayay adilaau tusayaal iyo ducaad ku yihiin yay ugu yihiin liman qof istahdaa hanuun dalbay leanna qofka inuusa hanuunka isaga doono ma ogiye cidna qasab laguma hanuunin karo innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa waqadru kullu mri'in qof kasta sharaftiisana maa kaana yuxsinuhu waa wuxuu yaqaano waa cibaaro aada u qiimo badan oo shucaradu ay aada u isticmaasho waqadru kullu mri'in qof kasta sharaftiisu maa kaana yuxsinuhu
waxa uu yaqaano weeye. walilrijaali cala alafcaali asmaa'u raggii buu u sugnaaday cala alafcaali afcaasha dusheeda asmaa'u ay walilrijaali asmaa'u ragga dumarkana way ku jiraan meeshane walilrijaali dadkii buu u sugnaaday asmaa'un magacyaa u sugnaaday cala alafcaali afcaasha dusheeda ayayna ugu sugnaatay. oo waa maxay meeshaas? waxaa laga wadaa cid walba waxay taqaanay ku magac tahay. ninka makaaniga ah makaanig weeyaa la odhan, ninka dhaqaalayahankaana waa dhaqaalayahan baa la odhan, kan midisiinka yaqaana waa dhakhtar baa la odhan. mid walba waxa uu yaqaan buu ku magac yahay. marka aqoon ciddii aqoon leh ficilka waxa ay taqaan baa magac u ah. walilrijaali raggii buu u sugnaaday asmaa'u cala alafcaali afcaasha dusheedayna ugu sugnaatay. waxa ay samaynayaan bay magacoodu uu ku sugan yahay. magacoodu waxay samaynayaan ama ay yaqaanaan weeye. wadiddu kullu mri'in qof kasta waxa didkiisa ah ee cadowgiisa ah maa kaana yajhaluhu waxa uu jahliga uga sugan yahay weeye. cadowgaadana waa waxa aadan aqoonin. almar'u caduwun limaa jahil waa tii ahayd. waljaahiluuna kuwa jaahiliinta ahna liahli lcilmi kuwa aqoonta le bay acdaa'u cadow u yihiin. meeshana way iska caddahayo dadka jaahiliin iyo aqoon-yahanay u kala baxaan, waana labadaasna cadow bay isku yihiin. maxaa yeelay qofka aqoonta le wuxuu dhihi waxaani ma bannaano, waxaan ma suuroobayaan. qofka jaahilka ahna ma rabo qof sidaa yidhaahda, wuxuu rabaa inuu wuxuu doono intuu iska qaso uu yidhaahdo waxanaa sax ah. qofka aqoonta lena wuxuu odhan kayf siday sax ku tahay buu odhanayaa. marka labadaa qolo cadow bay isku yihiin. waljaahiluuna kuwa jaahiliinta ahna liahli lcilmi dadka ahlu cilmiga ah ayay acdaa'u u yihiin kuwa cadow u ah. wain atayta haddii aada la timaado bijuudin jawda iyo quality haddii aada la timaado min dhawi nasabin kuwa nasab u saaxiiba oo reer wanaagsan ka dhashay haddaad xaggooda jawda iyo quality kala timaado fa ina nisbatana annaga nisbadayada iyo meesha aan ka soo jeedno juudun waa jawda iyo quality iyo wacaliyaa u sarrayn. haddii aad nin reer u ka dhashay aad ku ammaanto ninka waa nin wanaagsan, gabadha waa gabar wanaagsan oo reer hebela haddii aad ku ammaani lahayd ama aad ku ammaanayso dadka fa ina nisbatana marka gabayaagu marka dadka ahlu cilmigu isku tirinayaa fa ina nisbatana annaga nisbadayadu iyo meesha aan ka soo jeedno qoladayadu juudun waa quality iyo jawda sarrayso iyo wacaliyaa u sarrayn weeye. fafusku liibaan bicilmin cilmi ku liibaan oo cilmiga ka fara qabso weeye, cilmiga ku dadaal weeye. fafusku liibaan bicilmin cilmi ku liibaan walaa tatlub hana dalbin bihi cilmiga badala wax aad ka bedel qaadato. oo cilmiga iyo xoolaha isku doorsanin, cilmiga iyo madaxtinimo ha isku doorsanin, cilmiga iyo dhereg ha isku doorsanin, cilmiga iyo wax kale marna ha isku doorsanin. cilmiga wax la mid ah ma jiro weeye. yaa amat allah yaa cabdallah macnuhu waxaa weeye cilmiga wax la mid ah ma jiro ee cilmiga ku liibaan ka fara qabso. wakhtigaaga inta ugu qaalisan cilmiga ku bixi walaa tatlub bihi badala. malaayiin dollar haddii lagu siiyo oo lagu yidhaahdo aqoontaada isii ha yeelin, aqoontaada ka qiimo badan. fafusku liibaan bicilmin cilmiga ku liibaan walaa tatlub hana dalbin bihi cilmiga badalan waxaad ka bedel qaadato. maxaa yeelay fannaasu dadka mowta waa kuwa dhintay, wa ahlulcilmi kuwa aqoonta lahna wa ahlulcilmi ahlu cilmigana axyaau kuwa nool weeye. waman araada qofkii doono an yacrifa inuu garto fadla alcilmi cilmiga qiimihiisa iyo wa ahlihi dadka ahlu cilmiga ah qiimahooda qofkii doonaya inuu barto falyarjic ha u noqdo ilaa kitaabi miftaaxi daari sacaada. kitaabka la yidhaahdo miftaaxi daari sacaada ha akhriyo ee lilimaami imaamkii uu qoray alcalaamati cilmi badanaha ibnu qayim aljawsiya weeye raximahu llahu ilaahay ha u naxariistee. wa huwa isaga kitaabun
مفتاح دار السعادة وكتاب كاسو جامع أروريي أرنتاسو جامعة أو وحو البكوبي وي ذكر وحوش ابن القيم فيه كتاب كقوله سكو شيغي 100 بو شيغي بقول إيا و53 إيا صدح إيا كنتن بقول إيا صدح إيا كنتن أيو شيغي وجها أو وجي أو سيابات بقول إيا كنتن إيا صدح أرنبو شيغي ابن قيم في كتابه مفتاح دار السعادة وكو شيغي بقول إيا كنتن إيا صدح داس وجيو في فضل العلم علمي فضل جيسأه إيا وشرفه شرفتيسه إيا والحاجة باهدة إليه علمي الله قبه انتهى كو شيغي ابن قيم الجوزية كتاب كيسا مفتاح دار السعادة بقول إيو كنتن إيو صدح وجي بقول إيو كنتن إيو صدح سيابات بو كتبا حي علمك فضلك إيو شرفت أوليه إيو والحاجة إليه باهد الله قبه وكذا وحاكو لمده كتاب جامع بيان العلم كتاب كاللي هذا جامع بيان العلم للإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وشيخ البخاري كتاب كيسا جامع بيان العلم اللي يراهدنا با أرنك فضلك علمك إيادتك أهل علمك فضلك الله هذلي وفي السفحات ورقضها القليلة آتك أير القادمة هذا أي نؤرك الدونة إنه قصة الصعودة بيان عدين باء موجز أو لقابيي بيان كوبا أو للعلوم علومتي الشرعية شريعة اللون نسبيي علومة الشريعة بيان أما عدين كوبا بان ورقدها سو سعودية الرسالة كل شيء دونا التي علوم تاسو ينبغي أي هبون تهي أما ينبغي أي لقد بون تهي على المسلم يقفك مسلم أن يتعلمها إنو برته علوم الشريعة يقفك استو مسلم أبا إنو برته أي واجبك كتهي علمك إساقا عدين ير أو كوبا أيان ورقدها الرسالة يرتأن كل شيء دونا حتى يصير إلى أوكا هذا قفك علمك الشريعة برانيو عارفا مد يقان بربه ربه وعالما مد مارتي أق بدينه دينتيس أق دينتيسنا يقان ربكين يقان سيء النقض قفك وإنو علمك الشريعة برتا توحيدك وإنو برتا فقهك وإنو برتا وخير العلم علمي وحاء خير بدن ما علمك يوصلك قارسية إلى الله إلهي حقي سجل مقاسا علمي خير بدن علمي يردن وحاوية وأمانا يهي وبدأت وحنكب اللابي ذلك الرنكاسي مركان علمي كهاللي بالصفات تلمامه التي تلمامها سو يجب أي واجب تهي أن يكون إنو أهاد عليها تلمامها دشوضة الطالب متك ضلبية للعلوم الشرعية علوم تشريعة علمك الشريعة قفك ضلبية تلمامها اللي قد دونيو إيا الصفات كاللي قد دونيو نكب اللابي ومحان نكب اللابي حتى تصيبه إلى ما أرتي علوم تشريعة أي كأصيبته بركتها بركة ده أي كأصيبته بركة علمك إلى أكهله بركة علمك إلى أكهله أو يحصل oo ka maaratay soo xasishado ka keensado weeye oo ka helo ala muraadihi shariicada ala muraadihi muraadkiisa qofka talibul cilmiga muraadkiisa iyo dantiisi ila uu ka gaaro minha min al-ulum ash-shari'a min al-ulum ash-shar'iyya ulumta ash-shari'ada muraadki uu kala haana ila uu ka si uga gaaro waa inuu tilmaamaha yeesha biidnillah ilahi idankiisa wallahu ilahi subhanahu nazahna wa ta'ala sarriye الموفق الله وافتشيها أهوية والهادي تسهوية كتسنية إلى الصراط المستقيم والضد توصن إلى الصراط جدك المستقيم توصنا الله كوافتشية جدك توصن كتسية لنك أكاتشرو إلهي قاسوية سبحانه وتعالى ربي يا ربي ربي قيو وفقني إوافتش وأن دعي سنة يا مرك ربي وفقني إله إوافتش فلا أعدل آنان كإيلان عن سنن الساعين كوي ددالي وددود إله آنان كوي عن فلا أعدل إله آنان كالليحن عن سنن الساعين كوي ددالي وددود في خير السنن ودمد أو خير كبدن كد دالي
marka kitaabkeennii irshaadu طulaabi ilaa nahji sawaab ayaan darsigeennii koobaad baa intaa inoogu muqadimadiisii baynu akhrinay maanta kadibna darsigu saddex qaybood buu ka kooban yahay risaaladu ka kooban tahay. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.